السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا دي سلامي دمان ولا لا بلو باتوقتان وانا وهلاشين سمية محمد يوتيوب جالك اداوني سيدنا واسمي داعد كسور هذا كعصبتها هاي سبسكرايب سهر marka la isku noqdo wanaagsan waxaan caawa muuqaalkan uga hadli doonaa dhacday bishii May ee sanadkan hadda naga sii dhamaanaya oo ka dhacday dalka Mareykanka duleedkiisa gaar ahaan meel kamid ah Chicago. intaan ugu galin muuqaalka laba codsi ayaan wataa. midka koowaad channelkan aad halkan ka arkaysaan inaad subscribe gareysaan waxa iska la gabar walaasheen oo Nasray la yiraahdo aad u jeceshahay in maaragtay khayrka iyo ay soo gudbiso wax faa'iideyso waxaana ku bin gareyn doona linkiisa commentiga ugu horeeya meesha ayaad ka raaci kartaa. codsiga labaadna in haday macquul tahay aad muuqaalkan pause dhahdid kadibna qaybta searchiga YouTube aad ku qortid magaca channelka oo yani Sumay Daacad inaad ku qortid si maaragtay hoos u dhaca nagu yimid aan uga soo kabano maadaama channelka channel yar oo hadda soo koray uu ahaa aniga muddo aan ka maqnaay intaas haday samaysay waa ku mahadsan tahay haddana ku soo dhawow muuqaalkeena maanta maalinna ma hanay habeen waay. ninkan aad arkaysaan waxa lagu magacaabaa Maxamed Almaro ma aqaan magaciisa Maxamed waay laakiin inuu muslim yahay in kale gabadhiisana Mia Maro ee lagu magacaabaa waxay ka koobnaayeen adi family afar qofood ah labadan wiil iyo gabadhan iyo hooyadood inkastoo hooyadood sawirkan hadda aad arkaysaan waxay gashay yani waa sawir inta ayna noqonin paralyzed kadib 2019 ayaa maskaxda jug uga dhacday jugtaas oo aan la ogeyn wax sababay ay barlaas la tahay waa qof u baahan in 24 saac la daryeelo oo yani sariir saaran oo xaaladii sidaan ah. marka gabadhan ayaa la yiri waxa ka dhimnay xafladeeda qalin jibinta oo dugsiga sare dhowr isbuuc ayaa ka dhimnayd. marka ma aqaani aabaheed inta markii hore ma wax badan laga dareensanay ma ogi waa u diidi jiray yani dadka family-ga iyo asxaabteeda oo dhan waxay u maleynayeen inuu u diidi doono kadib uu u ogolaaday inay aado xafladda ka hor yani kulan la qabanayay oo bandhig faneed camal ah sida ay qoobka ciyaar ama wax badan in la soo bandhigo oo xafladda ka hor ah kulan ah uu ogolaaday kadib aaday u farxeen ayada iyo maaragtay family-geeda iyo asxaabtooda dhan xitaa aabaha waxa la yiri isaga la soo adeegay maaragtay asiga la soo shopping gareeyay dharka ay ku aadi lahayd xafladii oo dhowr maalmood oo yar kaliya ka dhiman oo yani kulankii xafladda qalin jibinta maahan kulanka kale oo ardayda qabanayeen ay ka dhiman tahay ayuu yani go'aankiisii ka laabtay wuxuuna yiri kuma kalsooni kulay ma garan karo wuxuu la jeeday wuxuu dhahay aniga gabadhayda kuma kalsooni mana aadayso xafladda aaday ugu xumaatay walaashiisa oo yani gabadha eedadeed oo kamid ah qofka maaragtay aad u daryeeli jiray ee gabadhan hooyadeeda iyadana sidoo kale dadka arinta ka xumaaday ay ku jirtay markii dambe waxay tiri aniga guriga imaanayo hooyana aniga daryeelaya aniga kala hadlaya abaha kadib inta aanay imaanin maalintii ay imaanaysay intaan la gaarin ay fariin u soo qortay oo ah in ay ka cabsanayso inuu dilo aabaheeda ma aqaan hanjabaadii kale ma ugu imaaday ma aqaano siday ahayd baqshadii markii akhrisay markii ugu dambeysay gabadhii telefonkeedii lama qabanayo asxaabtii ay sugayeen way u suurta gali weysay eedadii ayaa marka arintii inta la soo xumaatay ay soo baxday gabadhii ay soo raadisay kadib waxa guriga imaatay yani gabadhii oo meyd ah oo qayb oo maaragtay guriga kamid ah oo qayb hoose oo kale maqaasin camal miyaa ma ogi oo gabadhii meydkeeda ilaa ugu yaraan 2 maalin camal ay ku jirtay oo busto lagu hogay bustuu ku daboolay isagana marka hore wuxuu ahaa qof taroogaysan haddana intuu kaniini u cabay oo sun ah isagoona uu talagalay inuu isdilo ayuu meedkii gabadhiisa ayuu ag seexday laakiin ma uusan dhimanin. eedadii markay imaatay isla markii booliiska wacday booliiskii markay imaadeenna ninkan waa la qabtay isbitaal la geeyay in muddo ah isaga ayaa xaaladiisa lala tacaalayay kadib baaritaanada la sameeyay iyo waraaqadaha maxkamadda ayaa waxa lagu ogaaday inuu fariin u diray mid kamid ah wiilashiisa isagoona ka xun maaragtay arinta ku dhacday gabadhiisa wuxuu yiri maskaxdayda ayaa isbedeshay waa iskantarooli waayay kulli daroogada inay tahay aan u maleynaya ilaa haddana lama ogaanin sababta uu u dilay gabadha. marka dad badan oo maaragtay deegaanka kamid ah ardaydii macallimiintii aaday ugu xumaadeen geerideeda xitaa waxa la yiri ninka oo ah wuxuu ahaa magaciisa iga dhumbe mid oo mas'uuliyiinta magaalada kamid ah ayaa xitaa aad uga tacsiyay sidoo kale eedadan way hadashay waxay tiri qof aad hami u leeyahay ahayd hooyadeeda qof u roonay ahayd ka taxadarto maaragtay waxaana hamigeedu uu ahaa la yiri inta aan xafladaba ay dhicin ay ku sii tala jirtay
marka ay iskuulka ka qalin jabiso in ay barato ama ay noqoto dhakhtarka ilkaha, inay noqoto dhakhtarad ilkaha qaabilsan. sidoo kale waxaa dad badan yacni aad iyo aad ugu xumaadeen geerideeda oo ku sheegeen inay ahayd gabar aad u furfuran, gabar maaragtay aad iyo aad ay u jecel yihiin qof walba oo iyada ku hareereysan, aad dadka u daryeeli jirtay oo uga taxdiri jirtay inay ahayd. aabihii waa la qabtay maaragtay booliskan wax cadeen ah wayba ku waayeenba markii la baaray gabadha in jug badan ay ku dhacday, jug badan inay ku dhacday, laakiin ma xaqiijin karno ayay dhaheen meesha rasmiga oo jugta ay uga dhacday ee ugu dhimatay. bir wuu ku garaacay la yiri, caagad waxba ma u reebanin. isagana waxaa la yiri marka hore waxa looga shakiyay dhaawacyo badan ayaa ku yaalay oo maaragtay cunaha iyo madaxa gadaal iyo uga dhaceen. inta ay maaragtay dagaalka ay ku jireen isay gabadhiisa iska difaacantay isdhahday ayaa laga yaabaa inay gaarsiisay. marka sidii ayaa lagu qabtay, in badan ay baaritaan lagu hayay, ilaa hadda yacni xukunkiisa ama wax lagu xukumay ee wax kasoo baxay ma aanan arkin ani ahaan, mana aqaano koley waxa lagu xukumay. markii la baarayna isaga baaritaan lagu sameeyay in dembi hore uu galay uu jiray waa lagu waayay. xitaa waxaa laga shakiyay in dhaawacan maskaxda oo yacni xaaskiisa uu soo gaaray uu isaga ka dambeeyay. iyadana wax cadeen ah looma helin, wax family problem ah oo isagii familigiisa ka dhexeeyayna yacni ma soo bixin. markii aan sii baarayn dhacdada marka aan arkay aan akhriyay waxay ahayd 4 May mar la wadwaday gabar oo maaragtay inay Pakistan ka soo jeeday ama Afghanistan ah ku wareeray oo maalin hore yacni maalmo dhan la wadwaday social media oo ahayd yacni 2 gabdhood oo walaalo ah oo nin dukaanle ah oo oday weyn ahay muuqaal ka duubay kadibna la wada dilay saddexdooda. anigoo dhacdadaasi baaraya ayaan midaan arkay, markaas rabay inaan soo gudbiyo. marka hadday noqotay anigoo mawduucyada ii diyaarsan baaraya inay ii soo baxdo. hadda markii aan ku laabtay yacni waxa lagu xukumay aabihii ma arkin wax natiijo oo ii soo baxay, kulay ma aqaan wax lagu xukumay ama ilaa hadda uu xukun sugo uu yahay. iskasta haataba muuqaalkan yar aan ugu talagalay inaan soo gudbiyo caawa. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan aad daawatay. fadlan iloon muuqaalka inaad like saarto aadna sii share garayso. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. bye bye.